السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن وناكسن داوديال كسو دوادا برنامجka xogogaal oo haatan si toos ah idinkaga imaanaya telefishinka Royal xarunta aanu ku leenahay galbeedka magaalada London anigoo Maxamed Yuusuf ayaa barnaamijka idin la socodsiinaya toddobaadkan barnaamijka xogogaal waxaanu kaga hadli doonaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee guud ahaan ka dhacay dalka Soomaaliya si gaar ah isbedeladii ugu dambeeyay ee ka jiray dalka haday ahaan lahayd dhinaca siyaasadda dhaqanka dhaqaalaha iyo sidoo kale xitaa fanka barnaamijka si gaar ah waxaa marti noogu ah kooxda qayladaan oo markaasi ka qayb gali doonta haddaan dhinacayga midig idinkaga bilaabo waxaa ila fadhiya Cabdi Shire Jaamac oo markaasi kabiirka kooxda qayladaan waxa kale oo isna ku sii xiga Maxamed Xuseen Ooliyad dadweyne oo isaguna markaasi kamid ah abwaanada ugu muhiimsan kooxda isla markaana ah safiirkii Soomaaliya u joogay dalka Senegal sidoo kale waxaa dhinacayga bidix fadhiya abwaan Cabdiraxmaan Sheekh Axmed oo gaas loo yaqaano oo isna ka tirsan kooxda qayladaan fanaaniinta ugu muhiimsan barnaamijka inta uu socdo waxaanu si gaar ah uga hadli doonaa sidaan idin sheegay waxyaabihii ugu dambeeyay ee guud ahaan dalka Soomaaliya ka dhacay dadka Soomaalidana waxa ay ka qayb qaadan doonaan qadka telefoonka iyagoo markaasi soo weydiin doona su'aasha ay isleeyihiin bal weydii markaasi kooxda qayladaan oo caawa marti si gaar ah uga barnaamijka xogaal haddaan ku hormaro kabiirka kooxda qayladaan Cabdi Shire Jaamac waxaad ku maqnayd muddo dalkii ku maqnayd wax badan markaan maqnayd hadii la fiiriyo sidii markii hore aad u noqon jirtay bal marka hore waxaad warbixin naga siisaa waxyaabihii aad kala soo kulantay Soomaaliya iyo fikir markii hore aad ka qabtay oo hadda isa ka bedelay maxamed aad baad u maxamed Yuusuf waad mahadsantahay waan ku salaamayaa awalan waxaan jeclahay halkan inaan ka salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtay xaalad kasta ku sugan tahay waxaan gaar ahaan salaamayaa Royal TV oo suurto geliya caawa inaan ummadda Soomaaliyeed halkan aan ka wada xiriiro kuna fikir qaadano xaaladaha guud iyo wixii aanu dalka ku soo aragnay iyo wixii fakaro iyaguba ay nagu biiranayaan haddaan u soo laabto su'aashaadii ku saabsanayd dalka markaan aaday ujeedkii muxuu ahaa maxaan ku soo arkay waxaan isleeyahay waa barnaamij u baahan maalmo iyo bilo iyo sanooyin baan isleeyahay waa musalsal sidaad la socoto dalkan adigu Ingiriiska ilaa 26 sanaan deganaa markii ugu horeysay Soomaaliya aan aaday wax ku laabto waxay ahayd 24 sano dabadeed sanadkii 2012 waxaan dalka ku laabtay anigoo aaminsan fikirkan ah dalkayga miyaa hagaagay ma dawladnimo ay iftiintay haddii madaxweyne doora dalkeenna loo xil saaray haddaan dibaday ku joogo dadkeenna u soo dagaagay haddaana ka daadguraysan waad og tahay hadee halkan Ingiriiska intii aan joogo dhowr iyo 20 sano dadka qaxootiga ay soo qaxayay ayaan halkan ku soo dhaweynahay dhiibahay marka hadafkaygu wuxuu ahaa in dadka aan dib u celiyo maadaama iftiin uu dalkii nooga ifay fikirka ayaan ku tagay wax badan oo wanaaga runtii waa soo arkay oo runtii lagu faani karo horumar aad u ballaaran oo bulshadu ay wado iyo shacabku ay mas'uul ka yihiin dhismo aad u ballaaran ayaa micnaha ka socda oo aad baaxad badan dalka intii aan ku noqonahay waxa ay suurto gashay inaan meelo badan aan ka tago sida Garowe Hamar Garbaharey adu barnaamij leena socdaalka nabadda ayaan intaas oo dhan aan ku tagayay oo aan waqtigiisa isagana aan u gudageli doono maxaad micnaha soo aragtay oo runtii aad aragtay waa su'aal jawaab u baahan waqti sidaan ku sheegay balse Soomaalidu sidaad la socoto waa dad suugaanta wax ku fahma aniguna waayida dambe suugaanta lagu qeyrana wax ku iraahdo marka armay haboonaan lahayd wixii aan soo arkay inaan qaab suugaaneed inaan micnaha ku iraahdo waan jeclaan lahaa sababtoo waxa la yiraahdaa Soomaalidu nin la yiraahdo Richard Burton oo ah nin Irish oo adigu 1800 iyo xoogaagii tagay Soomaaliya ragii ugu horeeyay oo intii isticmaalka Ingiriisku uusan Afrika ba tagin gaar ahaan geeska Afrika loo soo diray inuu sahan ku tago ayaa Soomaaliya markii la wareystay maxaad soo aragtay buugiisii wuxuu ku sheegay Soomaalidu inay tahay qoomiyadii gabyaaga ama qoomiyadii maansada marka wadad maansada siyaabaha kala duwan wax ku fahma marka maxaad soo aragtay markaad tiraahdo waxaan soo arkay baalka qabiilka ah oo runtii si baabaahay inta aan magaalooyin tagay ma arag qabiil qof weydiinayo ma arag taa waxaad moodaa ummadii in ay dhinaca xagga garaadka ay ka koreen qabiilkii uu si yaraanayo siyaasadda waxa ku qaraabtaan isleeyahay qolooyinkan micnaha siyaasadda ku qaraabta ayaa qabiilka isticmaala marka anigu waxaan soo arkay oo aan ku soo ururin lahaa safiirka iyo
abwaan cabdiraxmaan ayaa adigu aan u dayn doonaa arrimaha kale balse qaab suugaaneed baan micnaha aan ku sheegi lahaa oo magaalada xamaron runtii aad aan u jecelahay oo aan idhahda xuduntayda ku aasano dee noloshayda ayada mooyaane micnaha magaalada mooratian ku ah ayaan ku halqabsanaya oo aan lahaa magaaladan jeclaaye sanada ka maqnaaye muddo aan u jeelaay maalmahan qaxootiga ku ahaa madluunkee marna kuma hilmaamine qayladhaanta maansada tii aan ka mariyaay muqdishoy macaanay markii aan dib ku imid aan galay magaalada maamul aan xaq soorayn maatida daryeelayn ku yagleelan magac diin sida midab gumaysiga labadii mataanaa midkii aan xisbigu wadan marti uu ka yahay baan ka ahaa markaato milalkii xanuunkan marna aanan qarin karin ma adkaysan karaye ha maqleen dadweynuhu waxay iga maraysaa maalintii rasuulkeen salawaatullaahi caleyh salaatu wasalaam magaaladii u jeclaa dusha intuu ka milicsaday maka uu ka haajiray masiibooyinkii dhacay kama aadan mayrane macasalaama xamaray ma ku odhan karaaye mawluhu cid kuu bixi sida brofesor may oo kale heestan waxaan sameeyey safiirka saaxiibkay oo qaaliga ah oo ila joogay waa wada joognay markaan samaynahay waxay ahayd bishii January 2014 bay ahayd laba arrimood baa igu dhaliyey waa maro dalkii markaan ku laabtay haddee suugaanta waxaanu tirin jirnay annagoo dibadda joogna marka inaan u kuur galo gudaha waxa ka jira ayay ahayd ujeedadu ayaan u tegey marka laba arrimood baa igu dhaliyey kow inaan saaxiib nahay oo runtii professor Mayel la yiraahdo ayaa email ii soo diray galabta uu leeyahay ardayo dalkii sidaan moodayay waxa uma socdaan sidaa darteed barnaamijkii tabliiqi wadaniga qeeldhaantii aad waday aan kugula jiray xoogaa waxaan dareemayaa in aanan sidii ugu dhiiran karin maxaa yeelay rajadaydu ma fiicna walaac buu ninkaa geliyey labo hotel aan deganaa xaafad ku dhegan baa qaxwo minaha casriye la yidhi galabta waa lagaaga sameynhayaa hotelkii markaan ka baxay ee xaafadii aan sidaa u galay wiil yar ee 5 jir ah ayaa albaabka iga furay wiilku waa muryan dariir ama waa qaawan dhar minaha ama uu wato war maxaa ku dhacay adeer maxaad la qaawanta wuxuu yiri adeer dugsiga quraanka ka yimido sarwaalkii ishaarkii hal sarwaal ishaar baan leeyahay buu hal sarwaal ishaarkiina waa ii dhaqan yahay oo waa la dhaqayaa marka runtii tiiraayo aad u ballaaran ayaa micnaha igu dhalatay oo micnaha wiilka iyo wax marka maamulan xaq soorin maatida daryeelay markaan leeyahay safiirka aan u imid markaasaan ku yiri safiir qayladhaantii maanta anigu awalba assignment ama ma qaadan jirin waxba ay gujeenahaye bal ila feeri isagaa ila dhidgareeyay marka waa u soo noqon doonaa barnaamijyada marka intaa oo kooban baan micnaha aan dhihi lahaa balse wanaag badan baa ka socda dhinacaan marka laga eego shacabku is abaabulay oo iyagu ay qabtaan micnaha howlihii loo baahan waa tahay kabiirka kooxda qeeldaan cabdi shire aad u mahadsan tahay ambasador maxamed xuseen Ouliyo waa safiirkii Soomaaliya dalka Senegal in muddo waxaa ku sugnayd magaalada Muqdisho dabcan ragga diblomaasiyiinta ee siyaasadda ka shaqeeyana wax badan ay xooggaal u yihiin haday noqon lahayd sida international community ay ula dhilgareyso Soomaaliya oo kale adiga laftaada bal maxaa kaaga baxay muddadii aad joogtay Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ilaahay baa mahadle marka xiga waxaan caadi aad halkan ugu faraxsanahay inagoo nabad qabna afarteeda oo Muqdisho Cabdiraxmaan markii aan ka tagay ka bacdi buu yimid laakiin aniga iyo Maxamed oo maanta barnaamijka daadihinayay aniga Cabdi Shire abwaan Cabdi Shire waxaan si xoog leh ugu soo kafaaxi jirnay rag saaxiibadeen halkan ka salaamayo Cabdiraxmaan gaasna uu noogu yimid ilaahaygi maanta anagoo nabada meesha nagu kulmiyay ayaan aad iyo aad ugu mahadinayaa marka xiga waxaan dhammaan ka salaamayaa asxaabta taqaana walaalaha ama reer Muqdisho ha noqdeen ama ha noqdeen adduunka dacaladiisa ama London oo muddo 5 sano ka maqnaa oo hadda dib ugu soo noqday ha noqdeen waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaanka bacdi barnaamijka waxaan filayaa Soomaali waxay yiraahdaan maamba baadu marka macnaheedu iyo sheeko waa dambaysa marka waxaan filayaa markii hore markaan tagay waxaan aad ugu faraxsanahay aniga Cabdi baa wada soconay Muqdisho
cabdi sanadka horta kee ahaa 2012 bishii May 2020 ciil baa hayo iyo cabdi shira ciyaar jecel soo caga dhigo macabsadaha awliyo soo caga dhigeyski marka waxaan ku galay maasan la yiraahdo nin muwaadin aan ahay muddo ka maqnaayo sida igal maqaaray lagu maalay toobtaan muusa naabayaaye maxaan xiisa ku qabay muqdisho min nabadba waxa tahay magaaladii lagu wada midoobee maandeeq xornimadii meeshii lagu yagleele muuqaalka quruxda meelo ku siiyaan marna kugu iloobayn maxaan xiisa ku qabay muqdisho min nabadba wooloor maquusta mooryaan wax dilo iyo madaxduubta jaamba iga ka mamnuucee maalinka ma dhoofeen maxaan xiisa ku qabay muqdisho min nabadba maansa dheer bay ahaydaniya cabdi baa ku galnay marka wixii ka dambeeyana dee saan u sheegay maamba waa baadho waxaan ku wareejinayaa maxamed iyo cabdiraxmaan gaas saasay ila tahay maxamed waa tahay abwaan cabdiraxmaan sheekh axmed gaas adiga dhawaan baaba ka timid magaalada muqdisho oo waxaa tahay qofkii ugu dambeeyey hadda sida aan filayo dabcan waana soo aragtay magaaladii iyo guud ahaan soomaaliya howlihii ka socday isbedelo badan aan dhacay muddana waxaad ku maqnayd oo aad joogtay dalkan ingiriiska bal adi ra'yigaaga maxaa kaaga baxay laftaada magaalada muqdisho aad tagtay iyo meelihii kale ee soomaaliya marka hore fikirkaa ka haysatay maxaa iskaa bedelay horta marka hore waan idin salaamayaa royal t v iyo maxamed yuusuf aad baan ugu faraxsanahay casuumadan noo fidiseen aniga iyo muxuu ahaa labada abwaan ahna labada siyaasi haddana run ahaantii haddii aan si run ah oo aan anigu dareensan aan u hadlo ma ihi horta siyaasi arrimaha siyaasadda ma rabo inaan galo muddo badanna waan kasoo maqnaa waddanka muddo yarna waan joogay sidii qalbigayga aan islahaa way tahay soomaaliya iyo muqdisho waxaan kusoo arkay si ka gedisan sidaa ka gedisan oo ah kow horta wax qabyaalad la yidhaahdo oo maaragtay aan ka filayay ma jiraan waxaa kaloon ku farxay waddanka sida tviyada iyo mediaha adduunyada uu ka faafinayo inaanu ahayn waxa xun uun laga soo gudbiyo waxa horumarka ah ee la gaadhay iyo sida waagii baryaba ay maaragtay wax ugu soo kordhayaan aan la sheegin waxyaabaha faraxa dadka gelinaya aan muhiim ayna u ahaynba in lasoo gudbiyo I don't know waxay taas kaliftay marka dadka waxaa soo noqonaya rajo naawilidii fahankii waxa xun inay ka gudbaan muxuu ahaa experience-kii ama waayo aragnimadii ay soo arkeen dagaaladii badan ay muddada badan ay kusoo jireen dadku way bislaadeen intooda badan siiba shacabka laakiin waddanka waxaa laga yaabaa cillado fara badan iyo cadowyo fara badan oo dhan kastaba inay jiraan oo maaragtay ay caqabado hortaagan ay yihiin sidaa daraaddeed waxaan leeyahay Orobo malaayinkum bay madaxa dhaafsheen oo haddana waxay maagayeen inay midoobaan inaguna waxaan kala marnaa laba mucooyood maskaxwada shaqaysiya haddaan nina wuxuu yidhi maskaxwada shaqaysiya haddaan muruq iskaashaysan cirka lama mushaaxeen baddana lama muquureen dadka soomaaliyeed haddii ayna dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda ayna u diyaar garoobin in ay kulli u wada shaqeeyaan oo ayna mid noqonin cid kasta oo isku dayda inay wax u qabato ma u qaban karaan waa in ay fahmaan inay isku ujeedo yihiin isku dal yihiin isku dadna ay yihiin danta ka dhaxaysana ay mid qura tahay wada jirka iyo walaalnimadooduna ay tixgeliyaan oo qiimo adduunka ay ugu lahaadaan iyaguna naxariis iyo walaalnimadooda ay kala maalaan muhiimku wuxuu yahay dowladda Soomaaliya iyo dadka ka dambeeya iyo dadka ay dowladda u yihiin iyo shacabka Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa dhaqatada iyo muxuu ahaa kuwa taajiriinta culimo ku sheego dalkan Soomaaliyeed ee magacan si baaba'aya waa in ay ka saaraan xaaladda ay ku jirto oo ay si ka soo reesashada ay u gudbiyaan ugu dambeyntii barnaamijkan la magac baxay maxaad ku soo aragtay muqdisho waxaan ku soo arkay farxad iyo dib u soo noolaansho maadaama 25 sano uu dagaal ka dhacayay waxaan ku soo arkay ka soo roonaansho fara badan oo aan aad ugu faraxay waana mahadsantahay walaal waa tahay cabdi jirada adiga kugu soo laabto sida aan la socono Soomaaliya waxa isbedelay dawlado fara badan haddaan gaado xukuumado kala duwan aan ka wada yacni markaan soo bilowno xilligii kumeel gaarka ahayd kadib Soomaaliya waxay ka baxday muddadii kumeel gaarka ahayd waxaa la helay dawlad rasmi ah lafteeda waxaa isbedelay 3 ra'iisul wasaare 2 ra'iisul wasaare hore na soo maray haddana mid kale cusub hadda la magacaabay dhawaan waxaana muuqatay ididilo hor leh oo in isbedel Soomaaliya ay gaartana waa muuqatay muddooyinkii ugu dambeeyay haddana waxaa moodaa ilaa dawladii kacanka ay burburtay in Soomaaliya ay ku guuldareysatay in la helo dawlad rasmi ah oo awood leh oo hanata guud ahaan dalka oo dhan maxay kula tahay marka adiga maxaa laga socon laayahay oo ilaa ay hadda Soomaaliya ay la dhuntanaysaa
waa runtii waxaan rabay horta halkan inaan uga hambaliyeeyo prime ministerka cusub cabdirashiid cumar cabdirashiid cali sharmaake oo aan leeyahay hambaliyo xilka cusub oo lagu dhiibay waa kuga hambalyeynaya oo madaxweynuhu uu ku igmaday. waxaan rajeyneynaa in ilaahay wixii micnaha lagu igmaday micnaha lagaa helo. taa waa halkaa markaan dib ugu laabto su-aashaadii runtii qofba sidaba u arkaya. anagu hadda qoladeeda qayla dhaantu inta badan maanan ahayn dad abaabulan oo sugaan wax ku cabira maan ahayn, balse heesaha iyagu ama gabayadayada aanu tirinaaho waxaanu inta badan wax ku cabiraa sugaanta ayaanu ku wajahnaa dhanka siyaasadda. marka waxaan wax ka socon lahay dee wax kale ma ahan. waxaan sidan hadayto maansadii heeska hadda aan soo wadno oo aad ka dhex arkayso waxaan anigu aan aaminsanahay waxaa weye shacabkii qabyaaladii haraysay ka gudub, balse waxaan aaminsanahay ilaa hadda dhibku waxa uu ka socdaa kooxa danleeya oo dhinaca siyaasadda dadka xuurta ku haysta weeye ayaan isleeyahay dhibaatada soomaaliya halka ay ka socoto. haddaad xusuusto sanadkii 2011 markaanu baarlamaanka ka hadlayno o adress garanayno aan soo saarnay heestii xildhibaanimo xaal qaado, dad baa waxay u arkayeen inaanu ujeedo gaara iyo baarlamaanka aanu ku magaciisayno, balse inta badan waxaan idhahdaa sugaanta ku idhaahda waxa budulka kenya jada lagu baashaa ka badiso weye 550 xildhibaan beeso loo heli maayo. waa qayb micnaha ayaa waxaanu ka noqonay in wacyigelintii baarlamaanka 270 laga dhigo. waxaan qabaa marka soomaalida dadka ama baarlamaanka ku jireen dad fiican oo runtii aad iyo aad u wanaagsan micnaha waa laga dhexlaya waa ku jiraan, balse ilaa hadda waxaan lahaynin dad professional u ah ama kaadir siyaasadda aqoonteed iyo kartideed leh ilaa iyo hadda mayalka soomaaliga uma qaban. marka halkaa waa saluugahaya saluugma igu jirta, inkastoo hadda waayadan aada moodo sidaan horeyba u iri dhibku waxa uu ka jiraa waa hogaanka. mararka qaar sugaan anagu ku hadlaynaan waxaan idhahnaa hawshii adkayd weli maysan harin, hadafkii dadkii iyo himiladii shacbigu ma hagaagin oo hogaanka u go-ay. wax walbana micnaha waxa weeye waa leadershipka hogaanka. haddaad hadda eegto dalalkii nala midka ahaa ama nooga dambeeyey dagaalka sokeeye sida Rwanda oo kale maanta halkay maraysa waad aragtaa. waxaa ilaahay u baxshay hogaan aad iyo aad micnaha halkii ay micnaha maraysay hore uga soo qaaday, haddana la tartamaysa wadamada aad iyo aad u horumaray. marka waxaan qabaa wax walba waa hogaanka leadershipka. waxa weeye haddana mararka qaar hadee iyagaan hadda haysanaa oo waxaa la isku haystaa oo mararka qaar ayna masaajidada carabaha markaan tago ama waxaan arkaa waxaa loo duceeyaa madaxda dalka. marba waxaan is idhahdaa armay ciladu tahay inaanan u ducayn mas-uuliyiintayada oo maalmaha jimcada marka khudba jimcaha la akriyo ilaahu madaxda micnaha dariiqa sax noo hagaaji, ilaahu madaxda iyada ma dhici kartaa baan isleeyahay ciladu halkan ka socdo. marka warkii oo kooban anigu waxaan qabaa waa sida waxaan qabaa dalka kanu ilaa iyo hadda dhowr iyo micnaha 2 sano ku noqonahay adigu isbedel waa jiraa oo iftiin black tunnelka there is a light at the end of the tunnel oo tunnelka lagu jiray iftiin baa muuqda, balse 2012 bishii May bishii maxay ahayd micnaha September markii August madaxweynaha la doortay waxaa la filayay wax fara badan. haddana wax waa socdaan. waxaan rajaynaynaa marka in isbedelkan hadda mar rabno inaan hor dhacno qiimeyn baanu ku sameynaynaa. wixii dhacay waa dhaceen, maxay waxaasoo dhaceen hadhiin waabay dhacdada xala dhalay ka noqo dhayahay qalbiyada dhayahay baanu leenahay oo hadda ma doonayno in aanu waxyaabaha dhacay qaladaad waa jira shaki kuma jiro waa midda micnaha keentay. waxaan rajaynaynaa marka in cashar ay ka qaataan mas-uuliyiinta hadda dalka hogaamiye ilaa iyaga hogaamiye 20 bilood u hartay in wixii qalad dhacay micnaha ay ka faa'iidaystaan dalka dib aan loo celin baan rajaynaynaa. balse waxaan qabaa waa leadership micnaha hogaan xumo jirta awgeed baan isleeyahay. marka haddii tababar la siin lahaa oo qof kastoo micnaha nin kastoo Soomaaliya wuxuu ku aaminayaa inuu micnaha toos ka bilaabo hay'adda ugu sareysa madaxweynaha ugu sareeya ama prime minister ugu sareeya isagoo aan biyo tooni soo noqon
isagoo aan agaasimo soo noqon isagoo aan soo noqon micnaha director general isagoo aan wasiir ku-xigeen noqon dhibaatada jirta kaa wey simbali dee qof adduunka ma jiraaho waa lagu ilmaha yararka dalkan ingiriiskan joogin waad aragteen siyaasiyiintu iskuulle caadiga usoo galaan hadda David Cameron micnaha prime minister dalkan ingiriiska isagoo yarbu micnaha xisbiga uu ku jiro micnaha loo aababinayo marka waxaan qabaa aababin la-aan iyo nidaamyadii jiray ee ka horeeyay dadka aan la carbin qofka siyaasiga noqonayay marka ciladaasaa jirta nin walba un micnaha waxay noqoto un professor baan ahay engineer baan ahay kana hebel magaciis marka looma eegina waxaa loo eega un simply waryaha un iskool ka soo baxa waryaha jaamacad ka soo haba balse aqoon la-aan jirta awgeed baan u arkaya waxaan rajeynayaase in wax laga bartay qaladaadka dhaca waa tahay ambassador Olio adiga laftaada muddaa joogtay marna waxaad ahayd safiirkii Soomaaliya ee dalka Senegal diblomaasiyadda waa ku jirtay dawladihii soo jirayna qaarkood waa la shaqaysay maxay kula muuqataa oo horumar loo gaari laayahay oo dalka loo gaarsiin laayahay inuu noqdo dal guud ahaan dawladdu ay gacanta ku hayso bismillaahir rahmaanir rahiim waa maxamed horta shacabku ama anigu aragtidaydu rajada abwaan cabdiraxmaan iyo walaalkay cabdi shire ay muujinayaan mid ka duwan ayaan anigu qabaa anigu waxaan arkaa dalkan ilaahay subxaanu qaadirka inuu badbaadiye mooye in ay arrintiisu ay halis tahay su-aashii aad weydiisay haddaan usoo laabto wixii ka dambeeyey cabdiqaasin salaad oo aan international communityga aysan la shaqayn waxaa la dhihi karaa qoloba meel bay wax keentay cabdullaahi yuusuf allah u naxariistee waxaa laga dhaxlay in filada lagu noqdo integration isdhexgal ummadda soomaaliyeed ciidan soomaaliyeed la dhiso sheekh shariif sheekh axmed leegasiga uu ka tegey waxay ahayd in cod qalin wax lagu kala qaato iyadoo on qori iyo midna lagu qaadan kumeel gaarkiina laga baxo dowladeedan madaxweynaha iyagana xasan sheekh maxamuudna waxaa laga filayay in la gaaro doorasho cod ah oo shacabka ah oo laga xoroobo xildhibaanadii iyo odayaashii iyo habdhaqankii maaragtay 4.5 oo kale in loo gudbo oo qolo walba ay qoladeeda kale si cod ah dadka ay shacabku soo doortaan ayaan daro waxaa dhacay ama markii aad si dhaba u ogaato marka la yiraahdo kumeel gaarkii waa laga baxay dowladeedu hadda jirtaa waxay samaysay waa dabaaldegeen raggii markaa hormuudka u ahaa waxay uga qudbeeyeen waan xasuustaa xaflad lagu dhigay City Palace Hotel iyo kumeel gaarka waa laga baxay dadkii ugu horeeyay oo waxaanu nahay White House ka tago oo la aqoonsado oo waxay oo dhan waxay isku bedeleen in lagu xalaaleysanayo sababtu tahay kumeel gaarka markay ahayd wixii dawladdaas ay saxiixdo shacabka Soomaaliyeed wayna ka doodi kareen loomana qabanayn barkee dalku wuxuu ku jiray kumeel gaar ma ahayn dawlad rasmi oo shacabka si dhaba u matasha wixii oo dhan waxay noqotay siyaasad ilmo qabatay ah oo hantidii ama dhulkii Soomaaliyeed lagu xalaaleysanayo tan labaad iska badaaba dawlad ahaanta ragga maanta hoggaanka u haya markaan xoogaha la kaftamo waxay soo xasuusiyeen maxamedow halkan baa waxaa nimid 89kii iyo dadkii ugu horeeyaan ahayno dadku markii waxay dhibaatadu dhacdo oo 91kii dawladdii dhexe ay burburtay oo waxa la sameyn jiray from hand to mouth qofku inta shaqo taga meeshii laga gaari jiro dee ummadan aad u jeedaa waa ummad Soomaalidu sidaad ula socota dhaqanka fiican oo suubano raas xaseer ilaa raas gamboon qofku intuu ka tago Kismaayo uu ku tagayo Djibouti oo asagoo shilna haysan oo la iska martisooriyo reerka yaa jooga annaga joogna wanka loo qalayo dhaqankaasay dadkaanu ka yimaadeen oo markii la soo qaxay qofku asagoo on tiisa fiirin ayuu wuxuu ka fikri jiray aabihii iyo hooyadii iyo walaalihii iyo adeerkiis iyo haddaan ina adeero ku yiri soo ma urgootid oo waxa weeye marka waxaan xasuustaa annagoo shaqada ku jirnaan inaan saaxiibnaan hadda rabin inaan magaciisa sheego ayaa maalin dambe shaqadii ka waayay waryaa bal waran xagaad aaday markaasiye warba meeshii dhibkaad ay weli ka shaqaysan war meeshii baan ku dhabar jabayo dawaan markaas qasi jirno nin hindiyo illegal ah baashi lama control jirino nafta naga dhici jirto 91kii bay ahaydo markaas iyo wariya sabdiga yaanu kuwayn waa kooga shaqo malid sabdigu alla dheera waqtigiisaan u dhaliilay baan sabdigi warbal waran warniyo waa ku fiican u yiri xagee shaqo ka shorniyo nin waalan baa tahay
adigu qur-aanka xageed ka gaartay wallaahi billahi waa dhameeyey 3 jeer baan dhameeyey haye qaalin la yidhaha inamay tiirna waa layga bixiyey haye dee wuxuu yidhi nin adiga iyo nasiibka inaad warshadaas mar dambe ku noqoto ma aha oo adiga xaggee ilaahay kuu jebiyey nin wax kale layma jebina wuxuu yidhi dhegeyso anigu masaajidka way jabal baa waxaa la iiga bilaabay alifkii weligay qur-aan ma soo dhigan hadda idaajaa baan marayaa konton islaam haweenana waxaan hadda marsiinayaa qulwalle asagu asagaa macalina idaajaab asagu maraya qulwallana waxa weeye wuxuu dhigaa konton shantayda boon iyo tobankayga tobankaygaan ka helaa adoo dhameeyar iska da nin kaale halkaa qur-aanka kasoo macalin dugso noqo marka la fiiriyo siyaasiyiinta maanta noo jooga wadanka waa ninkaas idaajaa gaaray oo qulwallo dhigaya yacni iska badaa iyaga marka waqtiba ha iskaga dhuminin shacabkii iyo dalkii iyo dadkii anigu waxaan tegey hargeysaan tegey waxaan tegey gobolada dhexe waxaan tegey meel kastoo soomaaliya aan maray most of them kulley mediaha iyo waa ku arkayseen meelo badan ayaan tegey war dadkii completely waxa ku dhacay ummadii dhinaca kale u rogantay qolooyinkan iyo intaa waa ujeedaa dalka waxa lagu qabsanayaa waa la cuuriyaaminayaa yacni shalay berigii cabdiqaasin ma jirin askaro ajaanibtaas waa dadkii oo lasii cuuriyaaminayo amisomtaan iyo egadkaan iyo marka laga sii hadlo taas un-tu waxay samaynaysaa dadkii xataa kaash lacag kaasha iska dhaafay raashin xataa bisil raashin ceeriina lama siinaya mid bisil baa i d b s kii xeryihii qaxootiga la siinayaa waxa kasii daran waxaasoo dhan gaalkacyo iyo meel cadaado u dhexaysaa waxaan ku arkay dhowr xero oo geelii oo fuustooyin galey lagu karinayo bal ka waran dhirtii waa la jarayaa teendhooyinku waa beecshirada ugu badan oo gobolada dhexe laga samaysto waxaa laga yaabaa in ay ugu badnaayeen muqdisho iyo eriyadaas la dhihi jiray dameerka geela waa la gadayaa awrta waa la gadayaa dameerka waa lasoo gadanaya dadka wixii dhan waa bilcagsi ummaddu way tagtay ummadani waxay u baahan tahay oo arrin dabaqabashaa oo odayaasheedii iyo khiyaareynteedii iyo dadkii macnaha lahaa oo dee siyaasadda inta ka madax banaan inta aysan dhammaan yacni maaragtay yani in la daba qabto haddii aan taa la helin waxaan kale oo maanta dawlad baa la keenay meel kale mid kalaa la keenay berita mid kalaa la keenay maanso gabay antiriyaha waxa ku jirtay waa madaxda reer yurub sirtay noo maldahayaana mid ka qaad midkan kale u dhiib oday maqaar saara midka nool masaafiris la diro meeluu ka abaado madireed maraykan iyo london meydka lagu aaso murugmaarug bay nala rabaan maalin noo qorana markaasaa naloo qarinaya waana moognahaye malaysia midii lagu falaa maantana hortaale waa ireland meeshay martoon marag u taagnaaye mana garan kartaan waxay rabaan maandhow reer yurub ee mahuraan dhulkaygii miyaa gaalo loo meershay maqan oo danteenne ma qabo meel dhow inay taale moogow ha moogaan inaad meel cidlaa joogto waa tahay waa maasanta kugu soo laaban doonaa dadka ayaa iyagana sidoo kale kamid a qaybka barnaamijka qayb geli doona khadka ugu horeeyaan fursad siinaya hallo asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam magacaaga iyo meeshaa naga soo wacaysid london weeye haye magacaaga cabdi jaamac baa la yidhaahaa cabdi jaamac soo dhawow qaladhaan waxay caawa fadhidaa barnaamijka xogogaal ee telefishinka royal dabcan waxayna ka hadlayaan wixii ay soomaaliya kusoo arkeen maxaa su-aalaho qabtaa ama fikir oo nagu soo kordhinaysaa horta nimanka meesha fadhiya waa rag aan wada aqaano si wanaagsan baan u salaamayaa waa niman wanaagsan laakiin muddo ayay ka hagradeen soomaali gubaabadii iyo gabayada hadda ay tirinayaan xamar iyo meelo kale ay aadeen bay ku maqnaayeen balse intaasaan ayaga kaga gudbayaa saaxiibaday weeye mid baanse adiga aan rabaa inaan kuu sheego soomaaliya ka sheego haye horugal horta biro ministarka hadda la doortay awguri aan leeyahay wax soomaali u baahan tahay oo ilaahay u soo dirayo asaga oo sabab u noqonayo oo ay tahay midda hadda jirta oo soomaaliya qabiilkii kusoo celisay oo burburka kusoo celisay oo rabta mar dambe inay weydiisato in wax loo kordhiyo maraysa laba biro minister inay erido kuwa unbuu la degayahay horta wax kale taasna wax uga fiican soomaali maba jiraanba madaxweynaha hadda jira unbuu intuusa gaarin 20 bilood oo hadhay ayuu horta qaarajinayaa haye taasna soomaali baa u baahan
soomaalina adduunku waa muuqdaa inuu wax la qabto inuu doonayo laakiin soomaalida aan doonaynin waxa weeye baarlamanka 30 Ethiopia soo dirsatay ku jirto 30 Kenya soo dirsatay ku jirto 30 Djibouti laga soo diray ku jirto 9 nin oo intelligence oo 30 ka socota Ethiopia 30 Kenya ka socota 30 boorka u gudbisay Djibouti laakiin Cabdi Jaamac adiga ma xaqiijin kartid aan sidaan filayo waa ilaahay ka qabanaya dalka kuwaas buuna ka qabanaya dalka asagu wax kale uu soo kordhin karaa ma jirto ama wuxuu soo kordhinayo waa maasan yahay Cabdi Jaamac oo London naga soo wacay anaga Royal ahaan ma xaqiijin karno sida Cabdi hadda uu qabo waa fikirkiisa isaga u gaarka ah baarlamaanka Soomaaliya waxa uu naqaanaa oo baarlamaanka Soomaaliya inuu yahay qadka xiga ayaan markaan u gudbaya halo assalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله. magacaaga meesha naga soo wacaysid أنا يوكي وين بكرة صار أنا بلدها. haya ana kusoo dhawo barnaamijka ay maxaa su'aalo qabtaa والله أنا محيطة وحن يدين سو وعي ولا العبد الشري لها يا محيطة لها خير هاتي عبد الشران وجعيني يا سجى والدينتي سوا مربو يترك مامي سوا ما قرتوا هكا وكشغيني يا لدن مركا إلى يبرقي لا يهبط سديت سنوات بكسر ورثة مركا وحن إلى يمايت وحن ودعيني مركا أنت صنبان يدين سو وعي لها سجى والدينتي سوا تشنني هجي أنت صن ولا يدين سو وعي مركا عبد الشرو ما إسلام محيطة وشيء وحكوت لها لا يترك مامي لدن أنا تشوجا مركا جزاك الله خير بقول لا جنة هكو قيادي والدين كذي مثلا aan u soo laabto arrimaha lafteeda hadda gaar ahaan amniga oo kale tusaale ahaan marka laga hadlo waqtiyadu waa isbedelayaan waxa moodaa xogaa in marba mar ay ka fiicneed laakiin haddana weli amni sax oo la isku haleyn karo kama jirin dalka guud ahaan markaan leeyahay kama wada oo kaliya magaalada Muqdisho laakiin meelo badan oo Soomaaliya kamid ah xitaa dagaal ka dhacay wax hore looga soo gudbo xitaa qaarkood ay dagaal qaab qabiil ku dhacay meelo badan ka dhacay sida gobolada ay kamid yihiin Shabeellaha Hoose oo kale gobolada dhexe meelo kamid ah lafteeda hadda waxa moodaa xiisadeeda weli inay taagan tahay marka bal maxay kula tahay hadan si Cabdi Shire waa runtii waa wax laga naxo in dhowr iyo 20 sano dabadeed weli dad Soomaaliyeed ay u hamuun qabaan inay dhiig daadiyaan oo wax runtii aad looga naxo waxaan ka codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay qoryaha dhigaan inay nabadda dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waa ka codsanayaa Shabeellada Hoose iyo mudug iyo galguduud dagaalada ka socda inay joogsadaan baan ka codsanayaa oo ay ku xaliyaan qaab nabadeed taas waan la qabaa inay iga yeelaan oo aniga iyo tiimka waa ka codsanaya inay naga yeelaan jawaabta markaan micnaha isku dayo sida aniga la tahay sidaan dee horeba ku weeray waxa weeye dhibka Soomaaliya haddee ma dhicin waxa la yiraahdo dib u heshiisiin dhab ah ee xaqiiqo ah inaba ha yaraato ma dhicin oo inta dadka la isugu yeeray la yiri wixii dhacay waa dhaceen lama oran marka waxaan qabaa la xiriirinayaa un dhibka hadda jira in uu la xiriiro maadaama aan la samayn wax la yiraahdo dib u heshiisiin oo dadkii dhibku kala gaaray aan la isugu keen ma qabo in inaha dagaalku uu joogsanayo marka waxaan soo jeedin lahaa in dib u heshiisiin dhaba ummadda loogu yeero wixii wax kala gaareen inaha ummadda qof qoys uusan dhib ku taaban ma jiro anigaygan hadda kula hadlaaya oo Cabdi Shire afar walaalahay baa dagaaladiis ilaa sida dagaalada Soomaaliya Soomaaliya u dhaceen curadkii abahay iyo Iraankii loogu yeeray intaba waa la dilay marka iyadoo sidaas waan ku qancay qadarta waa saaway oo qofna uu qancaa laakiin dad waxa jira wali aan qancino dhiig inay daadiyaan wali hamuun qabo marka waxaan codsanahay iyo qaar waa political baan qabaa anigu waa siyaasadba maxay yeelay dad baa in dhiigu daata mooyaan siyaasadooda aysan shaqeynin marka waxaan qabaa in dib heshiisiin dhab ah dadka loogu yeero la helo waa tahay intaan awliyo u gudbin waxaan siinaa markana khadka oo daawado uu noogu jiro halo assalaamu calaykum السلام عليكم. وعليكم السلام magacaaga meesha naga soo wacaysa walaal magacay waa Maxamed Cismaan waxaan ka soo hadlay Norway haye Maxamed barnaamijka waa la socotaa waan la socday waxaan doonayaa inaan laba su'aal oo ku darsado haye soo daa su'aasheedu waa waxa weeye horta dib u heshiisiinta iyo dib u heshiisiinta ka timaada ka soonka dhaqanka
madax dhaqameedada ama maxaa dhalay kama ukanto abwaaniin kama ukanto maxaa dhalay siyaasiyiin haddii aan beesha caalamkuna nabadgelyo dib u heshiisiin ma keeni karto haddaan madax dhaqameedku aanay salka dhulka dhigin oo aanay dadka aanay miyirka usoo celin oo aanay dib u heshiisiin dhaba keenin dib u heshiisiin dhabi ma dhacayso Soomaaliya haye talabaad maxaa dhalay waad aragtaa shalay dambaysa la qarxiyay xamar sideebaa marka lagu leeyahay dib u heshiisiin iyadoo meeshii ay ciidamo shii joogaan oo amisan joogto ciidamada maxay tahay marka su'aasha kuna ciidan ay joogaan hadana xamar iyo muqdisho caasimadii ay qarxi ka dhacayaan madaxweynuhu aanu maamulin ba aanu dhaafsanayn ba muqdishoba imka madaxweynaha Soomaaliya ma dhaafsan muqdisho meel walba maamul goboleed baa jooga sideebaa markaa dib u heshiisiin loo helayaa dhaba laakiin maamul goboleed maamulka federaalka Maxamed Cismaan haddaan nala socotin adoo maasan su-aashaada maxay tahay marka su-aasha rasmiga aad qabtid maxay tahay anigu su-aasheeda yani labada su-aal tiimkan soo gabgeeyey waxa weeye dib u heshiisiin waxaa ka iman kartaa maan leeyahay madax dhaqameedka reer walba ama qolo walba ama waa talo waa maasan tahay oo Norway naga soo wacada oo maasan tahay dadka qaar waxa ay qabaan hadda qayladaan marka aan ka hadalno tusaale ahaan waa qaybna waa fan qaybna waa siyaasad sida hadda noo muuqata awliyo waxa uu ahaa safiirkii Soomaaliya ee Senegal adiga laftaada muqdisho waa kula joogay waa arkay howlaha dhinaca siyaasadda laftaada kaalin weyn ku leedahay Cabdiraxmaan waa dhinacii fanka candidate oo ah madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waa gartay marka awliyo haddaan siiyo maxay kula tahay marka in hadda sida la leeyahay dadku ay shaki ka qabaan in Soomaaliya aanay dib u heshiisiin rasmi ka dhicin oo dhaqankii aan xaggeeda laga marin oo wax badan ay u baahnayeen mar hore in laga fikiro intii maxaa la dawladaha la soo dhisin abiilka aan rabo inaan shacabka Soomaaliyeed especially odayaasha ragga marjaca ee loo noqdo oo sidii walaalkayga haddeer ugu dambeeyay uu lahaa aan rababa inaan gudbiyaa waxay tahay in la helo oday dhaqameedada abiilka aan rabo inaan gudbiyaa waxay tahay Maxamed intii walaalkay uu ka hadlayay iyo intii hore ku bilaabayba waxay ahayd wax dawlad iyo Soomaaliya ninkii yiraahdo qaar baa waxay leeyihiin adigu safiir baa tahay maxaa dawladda u dhaliilaysa waxa la yaabsanahay kuwa mid baa maalin dhoweed arkay anoo London bas ku ordayo Oscar baa la yiraahdaan wato markaasuu yiri waryahay ma doqon baa tahay facaagu waxay jiraan waxay wataan Range Rover intaasaad xabar joogtay miyaanad gaari gadan karin waxaan ba abiil u ahay oo maanta aan rabaa inaan maanta aan halkaan aan abiilka ugu sheego war dawladani iyo waxa la idin sheegayo dad wax horta xor oo adduunka ma jiraan khaasiyatan Soomaaliya muslim iyo gaalba oo soo dhar dhigteen waxa kaliya oo maanta Ilaahay naxariistiisa lagama qoosto Ilaahay wuxuu aayadiisa ku leeyahay inna ma'al usri yusra waxa kaliya leeyahay la taqnadu bi rahmatillah naxariista Ilaahay lagama qooste waxa kaliya la rajaynayaa oday dhaqameedada waxaan kale oo lagu sheegayo iyo waxa soo dhan iyo waxa kale oo maaragtay la isku daalinayana wax macno weyn lama aha يعني بيجا هسنو choice waxa la yiraahdaa qofka baryotamaya waxba ma maamuli karo marka aan international community shirarka aan ka qayb galayno waxa jirtay gabar yar oo Soomaali expert oo Mareykan ah oo aan la yiraahdo waa 22 jir marka waa Soomaali expert marka waxa joogtaa Nairobi waxa kale oo jiray iyadana mid dhinaca doonarka ka socoto oo Amerikaanka ah waxaan shirarka iyo markay dhacayaan iyo waxa suudadkan qurxoon iyo waxa marka la waxaynaya dadku markay kor joogaan waxay ay banaanka ka maqan yihiin waxay moodaan inay waxaan wax dhaba yihiin shirka ajendihiisa la dhigaa 2 bilood 3 bilood baa looga waxaya masawirka ninka mas'uulka Soomaaliga loogu yeeraa ka bacdi wax weeye gabadhaas yar ayaa wax weeye talada go'aamisa hadaa wax yar oo dabacdeen aad isku daydo contribution aad ka geysato ama waxay ku leedahay with the donors annaga waxaan ahay deeq bixiyaashii beegaas Amazon baan ka jarayna wax walbaan ka jarayna wax wadankan wuxuu u baahan yahay oday dhaqameed wuxuu u baahan yahay guurto wuxuu u baahan yahay abwaaniintiisa aqoon-yahankiisa iyo odayaashiisa inay istabaga inay ay taladooda intoo fariistaan war maxaa naga xumaaday 22 sano waa wax aad u tiro badan in ay horta dib ay wax xasuustaan Ilaahay loo noqdo inay ogaadaan talada inay safarooda ku jireen nimankan kale oo maanta istaamka haystaana waxay laga yaabay hadda dagaalaad sheegaysi oo waxyaalaha dhacay Allaahaydo waxbaad waxayd markii maamulkii ka horeeyay Sheekh Shariif waxa isla jiray Cabdiwali Gaas iyo Xasan Sheekh
aniga cabdiba doorashadan joognay iskool buluusiyaan joognay ma jirin qabyaaladu haba yaraatee wax la yidhaahda qabyaalad waa laga gudbay wax dagaal ah oo xarbul ehloo socda ma jirin waxa gabaabsi ahaa shabaabka kowda habeennimo ayaanu xasan sheekh la doortay waxa weeye filadiibaa kowda duhurnimo la galay waxa weeye abwaan xumaha diidiyo waayeelku ducadiyo in dardaaran dhaxalgala shacabka ugu deeqaa dadku ay ka sugayaan qadadoonka liitiyo damanuhu intuu karin damiirkaa ifarayee ha maqleen dadweynuhu ruux kastoo damiirlow dalkii halis ayuu galay duul habaar qabaa yimid dadku ay ugu yeeraan xulufada da'iyaja inta aan la dabargoyn soomaalaha isdaba qabo dib u noqoshadeeniyo deegaan la gubo iyo beelo laysku diro iyo dirirtiyo colaaduhu waxay uga dan leeyihiin dadka inay mashquulshaan danahooda gaaraan doorashaduna ay dhicin ruux kastoo damiirlow dalkii halis ayuu galay duul habaar qabaa yimid dadku ay ugu yeeraan xulufada da'iyaja inta aan la dabargoyn soomaalaha isdaba qabo hantidii dadweynaha duul qura iska qaato manhajka iyo diintii waayagaa dabaqayo ugaasyadii anduubniyo duqowdeennu tala ma leh dalka waxa qabsaday duul aan wadin danteenne dadweynow ogsoonow ha u dagan ninkii daran rabbi deeqdi baa iman culimaauddiinkiyo ciidamada dagaalkii culimaauddiinkiyo aqoon-yahanka dabadaha ku dayacay caruurtiyo ciidamada dagaalka iyo dumarkiiyo raggow kaca dalkii waa la iibsho dalaal iyo malaal iyo duco faahibaysee difaac qaran ha lala galo dibna yayna noo hodin rabbi deeqdi baa iman xildhibaano daacada laaluushka diidiyo diracyaha inoo kici doorashada horteed baa daruur caafimaadii duulkaana haystaa degdeg looga bixin xamar geesi daacadaa iman ka damqada dirso oo dadka noo mideeyo alla daayin idankiis dalku nabad ayuu noqon waxay ku jirtay barnaamijka la yidhaha markhaatiga nool ee 8 bilood ka hor ee 3 mudo muuqatiya 8 qarsoon aan ugu hadlayay dalka xulufo yar oon taariikh qaadan oo aan inta kale shaqo ku lahayn oo intay rabto ayaga ku tagrafasha oo waxay rabaan ka sameeya oo ayagu aan wadan oo hadda aad u jeedo meel walba dabka ku shidaya interestguna ay ku jiraan isbedelka wuxuu ka imaanayaa oday dhaqameedada waxay ka imaanayaan Soomaalidu deedniid waxay u baahan yihiin inay fariistaan waxay u baahan yihiin inay maskaxda shiilaan waxay u baahan yihiin dalkan ayaga iska leh wiilka yaroo ingiriiska wax kastoo dula tagto wuxuu ku leeyahay what is in it for me maxaa waxaan igu jira anigu waxaan aaminsanahay haddii 2016 la gaaro in that case qodob la yiraahdo na loo qarinayo in la qabsanayo markii loo dhiibay Wallor kadib markii loo doortay aqoon-yahan loo dhiibay kadib markii wadaad loo dhiibay kadib markii loo dhiibay civil society in leeyahay maanta inta 50 sano amisom iyo igada loo dhiibo intaynan taasu dhicin prevent is better than cure kortagu wuxuu ka wanaagsan yahay daweynta waxaan aaminsanahay inay revolution u dhaco waxaan aaminsanahay dalku inuu yimaado waxaan aaminsanahay shacabkan Soomaaliyeed haddaysan rabin inay Falastiin noqdaan in ay aayooda ayaga ka taliyaan oo aysan u dhiibin oo aysan ka waxayn intii walaalkay uu sheegayay oo kale yaanan kugu badine waa maasan yahay Bashir Uliyo abaan Cabdiraxmaan Sheekh Axmed gaas waxaad laftaada aad ahayd dadkii fanka ku dhiirigelinayay ama wacyigelinta sameynayay hadday noqon lahayd qaabkii wadaniyada iyo waxyaabo badan laakiin intaana ku siin khadka ugu dambeeya aan markan u yeero hallo salaamu calaykum alaykum salaam magacaagii meesha naga soo wacaysid anigu Shariif Axmed al-Dhaha waxaan ka soo wacay Denmark haye Shariif soo dhaw barnaamijka wala socotaa niyo aniga talan macnaha wadaa oo macnaha taladeeda waxay tahay labada nin oo meesha fadhiya Awliye iyo Qayladaan aragtideeda yarta ayaan rabaa inaan cabiro haye marka de waxay ila tahay labada waa dadkii baxay oo Soomaaliya tagay oo saan u arkay dawladda wax ka raadiyay haye marka labada fadhiyo taas kaaga jawaabi doona haye fikirkaaga labada ninba waa nin walbaba dan macnaha arrintiisa uu gooni ayuu rabaa inuu hadlo nin wuxuu ku leeyahay waxay u baahan tahay dib u heshiisiin ninna wuxuu leeyahay Soomaaliya dib u heshiisiin uma baahno oo waa doorashadii anaa taagnaayo wax wanaagsan baa dhacay haye marka anigu waxaan leeyahay damaca adiga kugu jiro wax fiican waaye bari baa naga kartaa mas'uul maanta qolaa hayso marka waxaan dhihi lahay
in aad macnaha mar walbaba aad ku dadaashin inaad wanaaga aad macnaha dhinaca wanaaga aad aadin eedun inaad meel la fadhidin wax wanaagsan ma aha waa tahay waa maasan yahay daawadahaas oo naga soo wacay dalka Denmark dabcan waa idin siin doonaa dad badan oo Soomaaliya waxay qabaan inaad rag xilal doon aad ahaydeen markaad tagteen Soomaaliya oo markii aad xilalkii aad weysayna markaas aad dawladda waxyaabo badan ku dhaliilaysaan laakiin waa idin siin doonaa abwaan Cabdiraxmaan Sheekh Axmed Gaas adi laftaada dhinaca fanka markaan kaa weydiiyo waxa la leeyahay dadkan wadaniyada iyo marka laga hadlayo waxa badi wax u sheega oo tabliiqa u gudbiya fanaaniinta marka inkastoo aad wax qabateen oo aad heesa badan oo baraarujin aad samayseen haddana weli dadku waxay leeyihiin meeshii loo baahnaa ma gaarin aad badan maadsantahay intaanan taa fanka aanan ka jawaabin horta waxaa fiican waxaa runta oo realityga laga hadlo mar walba waxa weeyaan waxa muhiimka ah adduunka waxa ugu muhiimsan oo ninka ragga u muhiimsan inuu magac sharaf leh iyo ubad ka soo daba duceeyo markuu dhinto uu ka tago adduunka wax kale looga tagaa ma jirto hadhow waa in lagu yidhahdo dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaada maxaa u qabatay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed dhibaatada haysataa oo cadowga ku ah waa 6 cadow haddii runta la isku sheegayo 6da cadow waxa weeyaan dawlad kastoo la dhisto ma suurta galayso inay noqoto mid la rabo sababtoo ah cadowyada wadankan haysta Soomaaliya aan idiin sheego 6daas waxay kala yihiin kow horta dawladaha dariska nala ah oo nagu heeraarsan ama nagu wareegsani Soomaaliya inay sharaf iyo karaamo iyo xoog iyo power iyo ciidan yeelato ma rabaan waxay dan ugu jirtaa Soomaaliya inay burbursanaato waa kow laba dadka lacagta haysta oo baayac mushtarka magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya ku haysta ma rabaan in ay cashuur dawladooda siiyaan oo mobilka galasiga iyo tuushuga bogus baa loo cashuuraa mid walba bogus ahaan baa loo cashuuraa dawladda iyo ciidamada inay dhaqaale geliyaan oo korto ma rabo saddex nimanka wadaadada oo afka duuban in ay wax aan iyaga aan hayni ay muxuu ahaa meeshaas order ka bixiso oo maamusho ma ogola qarax iyo waxay la taagan yihiin waxa la yiraahdo muxuu ahaa suicide iyo wixii muxuu ahaa oran jiray assassination waxa taas saddexeeya dawladaha shisheeyaha oo Yurubiyaanku tartan bay ugu jiraan Soomaaliya aniga ay isleeyihiin khayraadka waxay ku xisaabtamayaan 50 sano ama 20 sano ka bacdi marka dalkan dadkiisu uu yaraado qaar dagaal ay ku dhamaadaan qaarna dibadda uga yaacaan iyaga isku garbinaya qaar waxay la habbi ku yihiin badahooda iyo maamulka kore iyo administrationkaas inay maamulaan oo United Nationska marka ay ninka Soomaaliyeed muxuu member ka maaliyadda u tago wixii loogu deeqay marka loo baahdo 200,000 300 saxiix baa la leeyahay dawladdii dhamayd lacagtii la siiyay 300,000 ayaa laga saxiixayaa 200,000 baa soo gaaraya waxa weeyaan wixii soo gaariyay ciidamadii kuma filla dawladdii kicin mayso waa qodob kale dhaqaale la'aan iyo dadkii oo muxuu ahaa aan cashuur bixinaynin dhaqaale la'aan iyo haddii dadka shacabku ay 13 wiil baa dalkan oo jaahiliina oo reebaadiyaal oo cadow ka xoog badan oo muxuu ahaa inaga sareeyo oo badan waa haysto SYL noqday oo wadankan xoreeyay taasna waa mid kale waxa kale oo jirta dawladaha Carabta oo soo diraya muxuu ahaa waxyaabo fara badan oo aanu ognahay wadankan in uu nabad noqdo oo baadrool u soo baxo oo adduunyada lahana qaado ma rabaan dadka Soomaaliyeed oo qura unba cadowga haysta Soomaaliya ka bixin kara 6 cadow marka Soomaalidu leedahay marka kol nin kasto la keenana waa la eedayn wuxuu baa leeyahay hebel saano noqday hebel baa saano noqday xisbigana saano noqday wax muhiim ma aha hadii aanu rabno aayaheena iyo nolosheena inaan ka tashano dalkeenu sharaf iyo karaamo yeesho kulligan inagoo is eedaynin oo dadka inala diirka oo Soomaaliyeed dawladda kale inoo soo adeegsanayaan intaynu iska qabanno aynu mid noqono dalkan maqas baa lagu jarjaray calankiisa baa la jarjaray dhulkii baa la kala jarjaray dadkii baa la qaybiyay xadad baa la dhexmariyay divide barrier wax la yiraahdo ka dhacday marka way dib badan tahay waa hawl adag oo ragga Soomaaliyeed geeska Afrika hortaala ha u guntidan dalkooda karaamadooda inay soo celiyaan hadii kale is eedaynayaan kolbanika meesha la dhibo la canaananayo iyo inta daba joogta iyo hebel iyo waxaas la iska dhaafo kaalintaadi marka adiga ma ka qaadatay oo dhinaca wacyigelinta fanka diyaar waligeyba intii fanka aniga waxay geliyay wacyigelinta iyo wadaninimada anigu heeso jacayla kumaan bilaabin fanka ama lamaan soo istaagno kumaan heesin wadaniyad waliga calanka buluuga waxaan hayn ma ku heesin Soomaaliya garan
waxaan u diyaarahay dalkayga sharafkiisa iyo qiiradiisa iyo wacyigelintiisa iyo wadajirkiisa ayaan mar walba heegan u ahay waana soo sameeyey waana samayn doonaa waana ku tala jiraa waana mahadsantahay waa mahadsan yahay gabagabadii barnaamijka ayaan ku jirnaa su-aashii ugu dambeysay oo dad badan oo Soomaaliyeed ay isweydiinayaan waxa ay kusoo laabanaysaa Cabdi Shire iyo Awliyo waxa tiina leeyahay rag damac ku jira siyaasadeed oo mar walba ay tagaan oo ay damacooda siyaasadda soo waayaan dawladda markaas jirta dhaliila maxaa ka leediin si koob iyadoo waqtiga aad u noo hayo waa soo dhaweynaya hadii Soomaalidu waxay tiraahdaa nin durbaantu ma ilaaq dalbay markaanu qayladhaan bilownay waxaanu diyaar u noqonay inaan wax eedeyno annagana nala eedeeyo balse waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaya gaar ahaan ninkii hadda odaga soo hadlay waa isaga fikirkiisa waa soo dhaweynaynaa waxaan u sheegaynaa iyadoo aan la hadli karin qof Soomaali ah nimanka wajiga duuban aan la hadli karin waxaan moodayay inaanu annagu ahayn inaanu qayladhaan waa waray qeylda mahar iyo diinta lagu qaraabtaa inaan yaan la dooran wadaa diinta qalad u daliiliyaa damaciisu yahay dalka inuu xukumo diiday haddaad dhahdana midi daabla iyo dhagax kugu dila qabri duug ahaa dib u faagay yaan la dooran ruux dibad ka yimid dahabadu qabay iyo ubadkii dayacay waxaan moodahayey in micnaha ummaddu ay ka dharagsan tahay in dadkii awooday ama ku dhiiraday inaanu dhibka dalka ka jiran aanu ka hadalno inaanu dhahay marka waxaanu baarlamaanka markaan ka hadlayn oo aanu lahayn xeebaha kuwii iibsado weliba xuurtaysan ayaa xil u dagaalamayo xeerna uu qabanay dadka kuwii xasuuqaa ku jira oo xumaha dhigaya amisom bay xayndaab ugu jiraan xero yar oo odan xabaduhu waxay dilaan maalintii maato xoog daran xinjiraha shacabkay daadiyaan kuna xashaashaan ilaa ilaaluhu shacabsadaan xukun ma gooyaan aniga waxaan malanayaa dadka qurbajoogta gaar ahaan London inaan isgaranayno Soomaaliya dhaqaale uma aadin nafti horanimo iyo inaan wax ku biiriyo ayaan u aaday ma jiro hay-adaha Soomaaliya ombudsman wax la yiraahdo hay-adaha waxaa jira micnaha hay-adaha dawladda micnaha markay gaf ay samayso cid loo cabto dalka iyagu ma laha qayladhaantu marka waxaan qabaaba inay tahay ombudsmanki dhibaatada Soomaaliya ka dhacda halkii looga soo caban lahaa inay tahay baan qabaa marka in aanu ifino haddii aanu dhibaato jirta aanu sheegno of course waxaa budulka Kenya jaadar loogu baashaa ka badayso weeyo war dawladda hadda jirta hala burburiyo malin laakiin in aanu u ifino maamulaan xaq sooreyn maatida daryeeleen ku yagleen magac diin sida midab gumaysiga labadii mataana midkaan xisbigu wada martigu ka yahay baan ka ahaa marqaato mililka iyo xanuunkan marna aan qarin karin ma adkaysan karay ha maqleen dadweynuhu wixii indhahaygaan ku soo arkay iyo inaan micnaha ka hadli waayo haddee aniga iyo ay doqonnimo igu noqonaysaa marka waxaan leenahay micnaha ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta xoogaal noqda dalka ku laabta maahan maalmo iyo inaad tagtaan adigu 2014 ilaa hadda 7 bilood baan soo joogay 2013 7 bilood baan soo joogay 2012 8 bilood baan soo joogay xogogaal ayaan waxaan u ahay dibaddana u ahay gudahana u ahay in aan micnaha layga sheekayn marka lagama yeelahayo nin adigu warba iska jooga oo fadhi ku dirir micnaha usoo ka yeeli mayno xaqu hadduu qaraariyaa soo qotay maahan cidna u gamban mayno waxaan kaloo hambaleynayaa oo micnaha isbedel weyn dalka inuu micnaha hadda ka socdo oo hadda waxaan maqlahay xildhibaanada qudhoodii xildhibaana xalay saabulay oo oranahay waxaanu samaynaynaa urur la yiraahdo ururka toosinta dalka marka waxaa loo baahan yahay waxa weeye iyadoo aan qori la qaadan in siyaasad dalka lagu toosiyo marka waan qabaa in la isdhaliilo dhaliisu waa inay noqotaa mid wax toosina anigu waxaan qabaa taayadu toosin weeyaan aaminsanahay safir Awliyo adigu waxa la leeyahay waxa uu dhaliilaya dawladda xeelad dhowr jeer doontay waana ku guuldareysay marka ma aaminsan tahay inaad xil doon ahayd markaad tagaysay Soomaaliya oo aad nin xil doontay tahay haddii aad weysanaysa dadka dawladda ku dhaliilaysid waxaa maxamedow horta walaalkay waa u hambalyeynaya aniga sideedaba waxaan aad u jeclahay challenge-ga pressure it is my pleasure in lay criticism in lagu sameeyo oo lay dhaliilo oo la iska kaydhiciyo waxaan u arkaaba tii caqligaaba ku siyaadaba the difference is beauty of life nolosha macaankeeduba waa kala duwanaanshaha marka horta walaalkay waa hambalyeynayaa maxaad u taqaanaa xil anigu waxaan ahay safiirka wadanka Senegal oo fadhiya 6 dawladood credentialkayga oo 6 dawladood Senegal Gambia Guinea Bissau Guinea Conakry Mali iyo Mauritania safiiro ah haddaan caawa layga qaadina current ambassador of Senegal baan ahay hadday bari iga qaadayaan iyaga u taala haddaan qabay haddii kala safiirkuna waxa weeye madaxweynaha iyo safiirka ayaa calanka qaadan kara
hadday taasu dhaliil leedahay haddii laleeyahay ma hadashidna horaan waxaan u idhi nin xamaali dhabarkii jabshoon xoola dhaqanaynin qalbigiisa dhaawaca ku yaal yaan dhiggiisa haye huddo dhabuma lado cabdow dhool ka haajiraye yacni xaaskii ka tegey dhool ka haajiraye qaran loo dhanyahay baan lahaa dhidibada u taage dhibna waygu gaariyo weliba dhaawac haliseede wadkuse waa ma dhaafaan iyo dhaad mawda dhamisaaye ilmadaydu waxay dhacday qoyso dhabankayga internet waxaan hadal ku dhigay dhiiba sawirkayga rediyo dhegaysiga ka idhi erayo dhaadheerba youtube ka dhaanshee murtida ugu dhigaalshaaba waa dheeman iyo luul ilmaha dhaxal yaal meele xilu dhaafay dheef iyo macaan baadhi lay dhigaye dhulka ugu hiliyo dhawaaq iyo dhamac rasaaseed waxaan marka kaaga wadaa horta aniga layma laaluushi karo ma fahamti waxa weeye riwaayad la yidhaahdo aragnaya ma maqasheen iyo riwaayad kaloo la yidhaahdo adeer aaba ismoodo 11 haysood ku jiraan oo badankooda aad halkan ka arki doonteen oo dadka lagu saxayo iskaan saartay wacyigelintii waxaan soo aragnay barnaamijka marqaatiga nool oo dalku wuxuu ku dambeeyo ayaa waxa ku jira hees ay ku dhamaanayso indha lay gaduutiyo gabta iyo bootadu laabtay ma geliyo waxaan ahay nin geesiya guri laygu baadiyo laaluush ma gayo ogow layma gadan karo marka waxaan ka wadaa waqtiga wax yar iisug maxamed walaalow waxaan rabaa inaan su-aasha walaalkii ku soo celiyo walaalow markaan lahayn xildhibaan isdoorto lagu xalay qabiilo lagu xulay qabiilo xujo iyo dhibaan nacay xal maraajo tuugo masaakiinta xada iyo laaluushku xoogsade xalka diidayaa nacay waa kooxna loo xulay iyagaa isxaasida xabsi bay ku nool yihiin xushmaduu lahaan jiray xooluu ku doorsaday xantimooga maahee waa waxaan xushoonayn wasiirada xibnaha sare wasiirada xibnaha sare xirfad laguma doortiyo danta guudin xallin kara waxa lagu xushaabeen iyo kii waxadi kara xushmad beelka nagu dhacay waxa loo xaglinayaa xildhibaanadan jaan dowladuhu xusheene dalku nooga xoogeen xaqiiqada dhabtaa iyo xogta jira ogaatee dadweynuhu xisaabtaba xaquuqdiina raadsada xay nabadda jeceloo xiqdi iyo dhib badanoo laga xoog badshaa jira iyana waan xusaynaa walaal markaan lahayn ilaah baan kugu dhaarshay miyaynan garahayn miyaan maanta loo jeedin tan labaad waxaan anigu ka hadlayay markhaatiga nool 8 bilood muwan ra'iisul wasaarihii markii aan lahaa 3 muuqatiya 8 qarsoon dadun baa sugu haatan in adduunku samaado gadaalna ugu siyaado 3 isjeclaydiyo saaxiibadii sarkaani masuuroobi kartaa dadun baa sugu haatan 3daas aan u jeedniyo 8 talinaysa calankaas 3 geesa Soomaaliya dhan wadaano salka guul ku furaani masuuroobi kartaa adeer anigu hagaanahay inta aan la arkin in la arkaan raba waa marka la iyo golyahay inaan isfaaniya abwaanimadan ku faanaya aqoon iyo kuma faanaya safiir iyo sheekh midna waxaan rabaa inaan kuu sheego shacabka dantooda loo guntay haataay qulu alxamdulillah maanta waad naquudaraynaysaa maalin baa jiri doonta inta aysan karin inta aan waxba nimayo adduunka tagyo waa arkaynaay aqli naaqis mooyee nin kale wuu ogsoon yahay abaartuu lahaan jiray anaa oran karo aan baqayn ayba aaminaye ajashayda anigaa ogsoon inay aayad leedahay adeer aan kuu dhehe idhaaf aan kuu eedoobo hala ii kaa dilo waxa weeye marmar waxaa is dhahaa waxaa tahay ma liibaanaha lagu liibaanaa is tahay marka walaalkay qanac waxaad haysataa rag qadiyadaada u dagaalama adiguna dadka xaquuqdooda la raadinayaad ka mid tahay safiroli waa mahadsan tahay daawadayaal guud ahaan barnaamijkii xog ogaal oo aad caawa si toos ugula socoteen telefishinka royal xarunta aanu ku leenahay magaalada london intaas ayaan kusoo gabagabeynaya waxaan si gaara ugu mahad celinayaa cabdi shire jaamac kabiirka kooxda qayladhaan oo barnaamijka igala qayb qaatay sidoo kale danjire maxamed xuseen awliye dadweyne oo isna barnaamijka marti igu ahaa iyo sidoo kale abwaan cabdiraxmaan sheekh axmed gaas oo isna barnaamijka ka qayb galay farsamada sidoo kale waa dadkii taleefanada kusoo wacay barnaamijka ka qayb qaatayna sidoo kale waa mahad celinaya tan intaan dib u kulmi doono dhammaantay isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu